bisadan magaceeda waxaa la dhahaa Larry the Cat ay ku magac dheer tahay 10 sano la soo dhaafay waxay ka shaqeynaysaa ama ku nooleed xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkan Ingiriiska sanadii 2011 ayaa si rasmi ah waxaa looga codsaday xarun oo lagu xanaaneeyo bisadaha oo caan ah oo London ku taalo in laga soo wado oo la keeno si ay ugu noolaato ogana nadiifiso jiir iyo cayayaan kale oo markaas fara kulul ku hayay waxyaaba cajiibka ah waxay tahay markaas shaqadii loo keenay mooyee shaqo ka badan ayay qabato warbaahinta caalamka ay indhahoodii maaragtay soo jiidatay bisad waxay noqotay oo la saaxiibtay ra'iisul wasaarayaashii meesha ka shaqeynayay muddadii 10 sano ilaa 3 ra'iisul wasaare ay isku daba martay David Cameron, Theresa May oo ka horeysay ku xigtay haddana Boris Johnson ay la shaqeysaa ay la degan tahay waxay la kulantay madaxweynayaal fara badan oo caalamka ka kala yimid oo dalka Ingiriiska soo booqday waxa kamid ahaa dadkii la kulantay madaxweynihii hore dalka Mareykanka Barack Obama waxay kaloo la kulantay Donald Trump oo isaguna markuu madaxweynaha ahaa soo booqday 10 sano ayaa laga soo wareegay sidaas darteed ayaana hadda looga hadlayaa oo warbaahintii baa soo qaadanaysa waa bisada waxa la dhihi karaa ugu caansan wadankan Ingiriiska oo adduunka ma aragtay sidoo kale adduunka kalena gaartay fariinteeda oo Mareykanka oo kale hadiyad ayaa looga soo oo White House-ka iyada si toos ah magaceeda ku qoran waa bisad mataqaana siyaasadda wadankan xataa ku dhaxmilanto waxa cajiib ah waxyaabaha oo wadankan lagu arkay waxa kamid ahaa David Cameron waagu ra'iisul wasaaraha ka ahaa in lagu xantay inuu bisadan uusan jeclayn kadib heer dadkii wadanka deganaa markay indhahoodii soo wada jiiteen oo warbaahinta lagu sheegay ra'iisul wasaarihii danta wuxuu ku qasabtay inuu baarlamaanka ka hor istaago uu ka cadeeyo inuu bisada jecel yahay si uu dadku u tusano sawir oo la hor yimid baarlamaanka uu leeyahay bisadan waantana Larry waan jeclahay dhabtiisa iyadoo ku fadhida ayuu soo sawiray marka wuxuu ku tusinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay bisadan iyo sida cajiibka leh ee dalkan Ingiriiska iyo dadkan reer galbeedka ugu ma aragtay milanto ay u jecel yihiin sida kale bisadu waa bisad ma aragtay xariif ah oo dadka jecel oo mar walba warbaahinta xafiiskaas mar walba ay tagaan ay wararka ka soo tabinayaan way u timaadaa kaamirooyinka waxaas ay ma aragtay waxay leedahay xitaa page iyada Twitter-ka u gaar ah oo magaceeda ku dhisan oo ku dhawaad 500,000 people follow garayaan oo nus milyan dad ku xiran oo rabo oo dhageysto wax walba waxay soo gelisay qof dabcan u soo geliyay wax walba sida hadoo kale usbuucan markii 10 sano guuradeeda ka soo wareegtay dabaaldegeedii way ka hadashay Twitter-ka ay soo gelisay wakaalada Reuters ayaa video ka sameysay warbaahinta Mareykanka lagu soo qaatay warbaahinta Ingiriiska lagu soo qaatay cajiib waxa ah iyadoo lagu jiro xilli ma aragtay pandemic oo COVID-19 dadku uu cudurkan saameeyay oo la rabay in warbaahinta waxa ku mashquusho waxa arkaysaa iyadoo ma aragtay ahmiyad gooni ah siinayaan oo page dhan lagu soo daabacayo sheekadeeda